الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي بانكم mahadinaynaa masaajidka jaamica ee nagu soo kulmiyey. wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaana ilaahay inaan u dhowaano. a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka ay nagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan, keenaa hadlaaya iyo keenaa lala hadlaaya, inteennuba waxaan u baahannahay ilaahay inaan u dhowaano, inaan ilaahay u dhowaano, oon aakhiradeenna u diyaar garowno, oo adduunyadan aan ka qaadana diin waxaan ahay ninka ka qaata u khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebel u dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaay, iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weyne ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay. inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegay? caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqallo hebel baa go-ay muxuu ka tegay, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa, meydka marka la qaadaya buu nebigu yihi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii wada hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay, horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan? hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay ahaayeen. cabdillaahi bni cumar bnu khadaab baa lagu yidhi, asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa, way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen. sida inaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida inaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qusquslayaan. markaabuu nebigu ku yidhi, low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi, qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. haddii
asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innagoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhire inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagaba maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yihi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nagu arkaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku usii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato unbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su-aalood weeyaan man rabbuka man nabiyuka maa diinuka mar alii marka qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su-aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su-aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su-aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaas su-aalood baa qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyada aad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii gaflatin min hada fakashafnaa canka qidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadkii ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu wannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheedu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo
noloshiya geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo labiyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may sead u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulqayb la yidhahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu iman rabbaynay allah baa i rabbaynayey dukaanku iman rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu iman rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu iman rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu iman rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kumaan noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaa ku noolahay haddayna baxeen maba noolaanayn mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan lataraadkii baan ku noolay lataraadkii macaashkii may waa inaad tidhahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرتا دودا هذا استعمال ليس شفاء الله مسعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان قاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب ويا لكن رزق حق إلهي بكئمنا يا وأين أتقرتا ربك والله ويا معبودك وإلهي ويا كعبادة متيسوى إلهي ويا كبرية متيسوى إلهي ويا كالرجاء متيسوى إلهي ويا كعبسدة متيسوى إلهي ويا كليجي رجاء كليجي كعبصو كليجي بريو بعد هذا كليجي وشهو ربي جاي والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكي لعنكم الرقم وحكي لما أمسني دين بانو نولهاي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإمام رسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وأنا ما يسترتيب النبي عليه الصلاة والسلام وأين النقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة قلت على سيرة علي بن أبي طالب ننبايد هل من مبارز وحل معركة المسلمين دون حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالو إنا قال هذا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبوا لقدي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو سننا علي بن أبي طالب وننكا كورفا ديبو قنوفو جيغا لغا تفاي مرقاسو علي قنوفا لغا تفاي وجيغا لغا تفاي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغا تفاي علي وصريا
وككعي علي صحابتي وحي كوير هذا يا علي ما حد وككعلي بالقويري قال لمن إنك الدين وذولد قال لما يسي أديك أنا كنوف وقلت فيه وارمارك ورا إله درتي بنود قال لما يي هذا عرا يسوق شيء يقول النفط إذا درت دين ندنا كبقي يودي لله يد وحن قبن إله درتي بنو قبن عدة جعلان إله درتي بنو جعلان عدة نعي إله درتي بنو نعي وحن بحين إله درتي بنو بحين وح خير شيء إله درتي بنو شيء خير كان دقيسن إله درتي بنو دقيسن وين النقطة قف دينية ودين تو حكمين يسوع سج سواش قبر وكوكود بيرا توترادو أنا كدين تدوا إسلام مركز النبي كنا محمد عليه الصلاة والسلام بالله هركاني أول أورندونا محلو تقان شخص كان مركز أمومي كيليا والنبي كي محمد عليه الصلاة والسلام صدح دا سؤالات مؤمنكم مركو قبرك كجوابه أيا سمد الله قد واقع الله أورندونا أن صدق عبدي أدون كيجي رمبو شيء أفرشوه من الجنة فراش جنة لك سوقاده وقبله والبسوه من الجنة در جنة لك سوقاده وحده وافتحوا له بابا إلى الجنة الباب من الجنة وغفر الجنة هلك هكذا وذيب الأورانية دول كاتكو عليسي ميت دول كاتكو أصني منها خلقناكم وفيها نعيدكم هل كاتكو أصني ودول كدحدي سويان إن كتاب الأبرار لفي عليين جنتنا وفوق 7 سماوات هل كاس وقف مؤمن جنتي سكدا ونيا سيدا إنكم بآلة دنيا مكان هيسنة موبايل كإجابة أتكو هيستيد قفك أدوية هلك وقدم بيجوغ مقالي مقال هلك هذا قد ونيسو قارة أمريكا قفكي جوغي أي أديكو هلك جوغ مقالي مقال أتكو وضح ليسان مؤمن كقبر كدحدي سنة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka uu ka arkay jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doonaa iska seex qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto an-nawmu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun ba nabigu alayhi salatu wassalam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waa foofi waa macaash kasb xalaal ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan sidaalka lagaaga bixiyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa ku sheegaya la yamassuhum fiha nasab وما هم منها بمخرجين با إلى هيري أهل الجنة جنة هدي أي قلان جنة دحديدا wax tacab oo daalo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hordhigaya marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo ma jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكإلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا بإلهي إسرافيل بسورة أفوفايا ده نقول كيك الصبح دونان ده حق إلهي والله سؤرين دونان مركز قفك مؤمن إيمانك لها وحولي حي وما حي بلا يا هرددي نقصوكعي وان جفني وان هردني هردد محن نقصوكعي بلا markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yowm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بإلهي آية الليل آية النهار نرشد الدنيا كنا لهي ومالين يا هبين مالين تينا وفوفيسا هبين كينا ونسنيسا وتسيحنيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله حيري نعم الدوية انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدي اللي قدقنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي ويري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرة جنة كمدا الله قدقيا قال كينا وحا الله قدقيا قد قدود كنار تكمدا الله قدقيا لأن أوهردا وتضباطا كيسنا الدوية وصود علي أيا للي هلقا هكو دالو هكو نستو من آدم عليه السلام لقبل أبو إلى جوجدنا وحي أدوية بني آدم صومري عالم البرزخ بي كجرا إن وي هردا وين سنيسا ووحا قبرك دباتك وكلكو هيستا ورمها يعني وي هردا مالك قيامه صورة الله عفوفه ومن قبرك كصبح دونا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله أهل كيك النقضة الله ينقدق قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسرد الندامي مرق لي أركي مايان وحاد موداب ونبي يقول إنا نوجدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت اسكهب قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحن كم هدنا نحد انتي مروكتي أنك النقاقاذي ربي قي واكيدا فتان كبنا إيه شكورك هاويا إيه أفعاشا وناكسني أدون كل ما در لك كغن نقضي ويا لأنه يصوبحي يوم القيامة مالين تسرجوغا ويوم قرآنك يوم بوشيغا هبين مشيغين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين ما مغليسيد هبين كدودون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيغي وكنتم كنوا صندوا ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا على الجوغي توبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا توبان كنوا صنوا حسابتا كل مان دون لأن عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك يا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك يا كود دارتي وان بدبادني بودي وان نبت قلي بودي مرقا النبي يقول صنعو سيبو كن نبت قشيبو كيري بليشك وعلوا كريم إلهي وكريم حطو دونو سكا يا عفين بودي معيد باسكا قبصاني سيبو يري وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك بدا مجرو حتى جرى نبو رسول كل يحي ربي جيبوا قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عد وكلاف علينا يسمى جبته لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة مدقتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هرتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشا كسميست ابو نبي يقول قاشا كيشا تمر جيحيد وصدقاء ضب حسان كولين قطنا تمر جيح
ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي يقول تمر جاه تمر إني كان هلين أبو نبي يقول هذا الكون أكسن أكو هذا كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك أبو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كون مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ذاتك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءنا أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفوا البباردي سيبا كتالا واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هاوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز النبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نمبا ما قبر با من نقبا ما بإيجي يبو رسول قد هم بقى مجرد قولي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وهو أن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صد السنة بالي نكاس دولك مويان عرك ميجي مركز اللقوري مروق تم بدن وما حيبا اللقوري ما دتك وحي أوغان بغادوغو أوغاتي بالغيري دتك عنيق وحبيق مقاليني تيدا عنيقو أنك هالليا وعن النيشيغيا الموت في عنقي قريدي باقورت إيسودا والقبر بيتي هل كان لا يدقينا وقبر قويا والقيامة موقفي ماشا اللي يجوجنينا وبنك قيامة ويا وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويا وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي يوحي يقصمين دوننا كما ورغبي بود عنه انت سو مرحلة نيكا اي سوغيسو isagu haduu qosli ha qosla buu yiri anu tayda ka waramaya buu yiri inta noolahay oo in ba nolosheeda ku dhamaysan buu yiri maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaaga la dhaadhacaysa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مرقو النبي كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالك سرجوك أيوات كي سكر يا بي كتر من يقوى أي كر يا بي كتر كنت كنا صلى الله مرقابو النبي يقول يا عائشة قفك مؤمن كإيمان كله إيه أدوية دوشيد إلهي كسو أضاعي والله فوديدين صلاة دفرت كإنت تكتاني لك بابك قيام الله قد يقول انت تكنا صلاة المغرب 6 دقيقة لبيه 8 دقيقة صدحيه 8 دقيقة مؤمن كإيمان كله إيه أدوية انتو جوغا كالصايقاتي إيه إلهي تبارك وتعالى أكتيس وحسير دكتي إيه آخرنا كسي حساب تمي إيه تلابدو قادة يبا إيه آخرديس هذا الكنتو كالصوبح قفك مؤمنك آخردو إيه دقاليه سينتو نمبحين آخردو إيه ماشو مريو آخردو إيه ماشا عنو السعودة ما مال آخرده ذي إيقا داوعي سبا مسوا مال آخرده ذي وحيط الرئيس هذا الكا إيقا صوبحايا ما هذا الآخرده ذي داوعي يبا oo dib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradeeda ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaala aakhiradeeda ay kabayaba oo aakhira ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu igu dhacaya mise aakhiradeedii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oo ka qabsada inta goorta muuminku uu xisaabtamaya muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baabanka qiyaama looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada horta la yak aakhiradu qofka haday horta la maxay ku aakhiradu kugu saameynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaana waxa doonta ku hadli kari maysid waxa doonta eegi kari maysid waxa doonta cuni kari maysid sida doonta u noolaan kari maysid waayo
dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraayo dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisu ugu yeedhay aakhiradana xaggaygu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mid a ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacadda ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaa malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foolintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innagana maanta maasha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدى كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بنا هذا كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا دقيس قلبك سامين يا وحنا دقيسين قلبك سامين يا وحنا تكوهل قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا وأفرت قصبضات قلبك ابن هذا كسعته إلى أفرتاس صابات القلب بعلماء هذا وعاد يكتب قلبك قلع وعاد كهذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبية لما الشيء بعلماء هذا لما الشيء قلبك دحل قلبك قبية قرآن آخر سكي سوى الله بديو يا آخر ذو إنت بدل لا شك شك الله عز وجل شكي labada maanta may nagu yariin mise way nagu badan yihiin ya quraanka akhriskiisina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu miskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay miskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay ayaga suuqa مساجد سوق المسلمين كمصلاهم بود علي بن ابي طالب سوق المسلمين اسواق المسلمين تو واسد مساجد او كلا ويان سدا مساجد الهي لوغو وينينايو ايا زمن النبي سوقنا الهي لوغو وينينايي سدا مسجد دحديس الهي لوغو عاصيين ايا سوقنا الهي لوغو دحاسيين إننا زمن كنا مانتا شيكدي دبادة تالي أيا لقى يابا إلا كان مسجد كبدوهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا مرقابو النبي يقول إلهي كوما سوء علي يبو كي هذا أركتان بو النبي يقول إنن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا وعاتر هذا إلهي كوما سوء علي هذا أركتانا nin miskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaa tirahdaan ilaahay kuma barakeeyo dhahada innamaa buniyat almasaajidu lima buniyat lahaa masaajida wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi
nolosha masaajida taalabay culimadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla masjidka in la keeno maaha cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taala cumar binu khadaab suuqa madiina intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadaha rumaynay kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mar iraac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyagu soo baxayeen haddana maalin kaluu yidhi ina mar iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi yaa bnu cumar suuqa waad nagaysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibnu cumar baa ku yidhi waree kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaamno baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baan u ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolkaa awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiye waa maxay salaanteenu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kala haynaa boqol qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayaan saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhex mareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahaa oo lagu noolaan lagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhargaya cali bin abi aalib inuu yimid uu ka yidhi saaxib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaada fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weydiin markaasuu yidhi haa markaa burta arsaaqada kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buu arsaaqada ay kuu furmiyeen meelaha inagu imika wax ma ka egeegnaa ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayeen bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhaca diintan ilaahay nooma siinin keliya inay aakhira manfacadeedu nooga bilaabanto bal ilaahay diintan waxa uu noo siiyey inaan adduunkan iyo aakhiraan ku dhargno kulliba marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adduunyada diinaha ka qaadanno diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laanna mujtamaci waxay noqonaya mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya
سيدي لبدين حديث النبي نوغو شيغي في السنن نبا نين دول كا ايبيي دولكي markuu gatay waa dul beereed buu ahaa uu falay marka khasna dahab marka uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay oo la ordo ninkii lahaa uu keenuu ka yiri war dhulkaad iga iibisay dahabka inta lag baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneed iga qaado buu ka yiri markaas may anu kuma ogeyn adaa ilaahay ka siiyay adaa iska qaado buu ka yiri وروحان أديك على إيجاقاض إنك الزمن كأنه معي وروحان أنيق على إسي ويان تنو حقود دق الله من دول كان أنيق على قولي كان أنيق علىها مهرتنا أنيق علىها وحان أنيق علىها بس كويس سنة يكو وحي تاجنا يندتكم مركي حقاقين وروحان أديك على إيجاقه يكاد قادن مايو ما دعي كرتو ماي أدا إسكال أدا إلهي كسيه إسكاقاضو may dhulkan adaa iga iibiyay malaha waad halmaamsantay adiga iskale iga qaado waxaan mali anigu yahay lacagta inta laga anu kuma siine may labadii nin inta isqabsadeen bay maxkamadda tageen hay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kan wuxuu leeyahay war maliye isaga ilaahay siiyay ha iska qaato qaadigii marka qaadi fiican buu ahaa ضاد الزمن كان لقى يا بيني ورن لها حولها دولة على إسكا كان إذا غرب إسكا في عنوي جيران لكن كود دوا عسكر جرا دولة دو شقية وقتها حولها دولة إسكا كان الله كم حينوكنا مورن وحويري أبو محل لها أبد ويل أبو كنا كبر لبدا إسكو غوريا لبدا حولها صيب إصلاح هو عجيب هل كان هذا إصلاح هو عجيب هل كان هذا حماة لكن دقيقة قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام صدق ولا السعودين أي مادين من بنانك وذهب كيالو دايما مركز النبي عيسى كويد وحن ودايما والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز النبي إلى هاي صدري هي أدوية من الموضوع مرتبو كي مركز ده أنا كقاعدة هنا ده هذا القاعدة ثاني راعي بسان واديك هذين وقاعد دودي ديني أدوية اسم الرعد بوكي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بل النبي أي انظر ذلك مركز الذهب كي قاتل وإلا السعودة وإلا اللقيين مقالة دي مركز ودو وادين بير هذين حتى المالين قال الله ولا نقدعي هبين هكو بيقنو لكن وقا جورينا ويتشدين وعيد هذا الله بالذهب قاسي إلى للسوء من مقالة دي انتو تقو cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo buu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadii buu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي عليه الصلاة والسلام ورياض النبي محمد بن ليه جرك بن هذا وصلت باكو جرتا هذا هجاك جركو دم با هجاجي هذا يباراتنا جركو دم با بانان وحمان تاسنا وقلبك أبو رسولك يدي قلبك أنا وح كلمة هجاجيا قلبك لا عجمة هجاجسو قلبك وح كلية هجاجيا وأمرك يجك إلهي معرفة ديس معرفة الله عثمان بن عفان الله رضي كان نقضي الضميسي الضون كميدو ويا مالين وعور العقد انقاض أبو ذر الغفاري وقي
hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeedu deganaa ribdab meel la yidhaah oo cuثmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciintae diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ee adduunyadii la yimaadeen oo dhanna wuu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cuna isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maaha ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel laha uu yimiday uu salaamay wuxuu hi amiirkii mu'miniinta cuثmaan baan salaan kaaga sidaa waan kaa qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidii nebiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi ku celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiine joogtee ciddaasii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanaha ilaahay baa yahay cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsaneed iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weeyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin inuu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhi ar walaal addoonnimada ha ka baxe ixoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu hor iga qaado oo ii naxariiso maxaa kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buuhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu ihi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tegin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday
may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abu yidhi iska kacay ismaan baa ninkii u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socday war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nabiga ay ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxuu nabi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nabigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa qaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhi fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa علم البيع والشراء علماء كانوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ولهذا السوق يقع نوح كوي ذي كرام مجرب عمر أورنجري إلا أن مسكيت النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصوبر تيمويان إنك أنا ما تعيد والبقى نعصب بالوضوء تشاينية تايلان بلغوا الضولي هبري بقى سعودة كلها تشاين هاو سعودة حاجة سعنا والمؤمن وحال دونا هنا نقطة مؤمن لابد أن نقول كوكوت على إلا أدوية هذا كويعو إلا آخر هذا كويعو آخر هذا هنا أدوية كوسجن أدوية وإنير وحن جوجنا إنير ولا ليال إنتاير إن جوجنو إلهي هكذا بقنا ودينها كقادنو وديننا هم برنو وديننا كشقينو وزمن هذاك بالجرا زمن كان لجرا المتمسك بدينه كالقابض على الجبر ابو نبي قولي والزمن النبي محمد سي شيغي كل يافر بقول سنه كهر نيك دين تمارين تير على وان حج سن وحاو كدغنان دونا نين دمع لو ديبي رسول كيري بلشده كنا نو شيمانتا اك ومجتمع خير كوغو يرادي شركو بتي ماشي ادو بخدا بايشا ادو waxay ku dhacaysa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya مجتمع ومجتمع قفكو هدوين على ما أنت صنع النبي كفر علي وأتكان سينو قبص إلهي ودب يريم ويانا مركز زمن هذاك بان كجرنا وحن كقبت بالينا ومحي رجوع إلى الدين إن الدين تنوصل نقول ودذلك الدين علماء مر بين نوقو باقيان مساجد اللي قلنا هدينايو مراكز اللي قلنا هدينايو مدارس اللي قلنا هدينايو اجتماعية الله قبنا يا ومد الله لو فكرها يو ورددالك الدين هذا ما أنت عالم كسعداء للربع عمد إنه هنا علماء أنت قرب جوكسته عن ملك اليهود الجسد إن شاء الله هذا تمام قدونا ددالك الدين تا بس هذا يستاهل ونكسب ما نقولنا يا دقيستو ونكسن وحكوا ونكسن دقيسوا من الدين وياه لكن وحالة إن النقطة أديك لقربا إن الدين تقريب تلو كقاعد وتكقاعد كرتا صحابة رسولكم نول بالصلاحية دي لهي وقليي ومدو كوافعي كي علم لها علمك ومدو وحكو تري كي دغال لها دغالو ومدو وحكو تري كي رغنم لها رغنم ومدو وحكو تري كي وجهد لها وجهد دي سو ومدو وحكو تري اسماء بن عفان عمر بن نبي قدري مكة مركز صلح الحديبية وكعذر دارت عمر وعد عنيق ما يقول عثمان باكون مناسبة بقولي عثمان باكون مناسبة عثمان بن نبي قدري دل ورمتي عثمان هذول تك
khaalid bin waliid geesinimadii raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilaahay dembi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seefta oo ilaahay diintiisa u jihaad raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeeda marka innaguna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegay macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibuu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay darti u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelmadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannadu galee buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waanan inagu dheereeyey insha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr isoo dhex marana ilaahay baa isoo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay markiisa anu marti kumehiye waan deganahay ya waan deganahay maasha allah ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga marka allahna naga wada raalli noqdo kulligeen hada وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل